السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلكسو دوادا برنامجyo taxano ah kala socon doontaan telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. barnaamijkan toddobaadkana waxa marti inoogu ah Dr. Axmed Jaamac Ismaaciil oo ah la taliyaha bangiga Amal ee qaybta sharaacada, sidoo kalena waa hormuudka jaamacadda Nugaal ee qaybta sharaacada. Dr. Axmed Jaamac Ismaaciil sidoo kale waxa uu PhD ka qaatay jaamacadda Madiina Munawwara, wuxuuna takhasus gaar u leeyahay baananka islaamka. toddobaadkan barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa irsaaqada iyo weliba hantida Ilaahay inuu qofku doono siin karo, qofku doonana yareen karo. Ilaahay isagu markii qof walba abuuray qaybtiisa siiyay. Sheekha ayaan faahfaahin doonaa. sheekhu soo dhaw. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى حلقة يكون ضمن بصدا لتلمامي وحين كجاه اللي دونا حكامته كناعسي أخلاق كناعستها. وحين سوق قال حال ورد أن هذه لها يدمه مبادئ جود وحق عقيدة قفك مسلم كخصيصة وكصابسا مالك iyo qofka muslimka ay sida ula tacaamulayo iyo mabaadida aqeedaha muxuu ka aaminayo. waxaan markaa insha Allah taala ku bilaabaynaa Ilaahay subhanahu wa taala wax walba inuu qadaray, qadarkaas macnihiisu yahay Ilaahay wax walba inuu sii go'aamiyay, sida Allah subhanahu wa taala uu leeyahay inna kulla shay'in khalaqnaahu biqadar. shay walba waxaanu ku abuurnay qadar iyo jaangooyo, taasoo ah Ilaahay subhanahu wa taala saddexdiis ku tilmaamayo intaanu samada iyo dhulka abuurin ka hor kun oo sano ka hor inuu Ilaahay jaangooyey wax ka soo dhici doona ilaa qiyaam saaca. Ilaahay subhanahu wa taala wuxuu leeyahay khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiira. Ilaahay wuxuu abuuray shay walba waxaanu jaangooyey jaangooyin. aayaadkaas iyo axaadiista la midka ahi waxay tilmaamayaan qofka muslimka inay tahay inuu aamino wax alla wixii adduunkan dhacaya, dhib iyo dheef, khasaare iyo faa'iido, maal iyo ubad, madaxnimo, maamuus iyo sharaf, wax alla wixii insaanku uu helayo ee dhib iyo dheefa, caafimaad iyo cudur, dhammaan inay jaango-an yihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sii jaangooyey intaanu samada iyo dhulka abuurin 50,000 oo sano ka hor. waxaa ka mid ah arkaanta iimaanka sidaan wada ogsoonnahay aliimaanu bilqadar. xadiiskii macruufka ahaa عمر بن الخطاب وريني رضي الله تعالى عنه جبريل انتو يمي النبي صلى الله عليه وسلم وريستي او حوغيستي waxaa ka mid ahaa su'aaluhu weydiiyey waa maxay iimaanku. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri antumina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. arkaanta iimaanku waa la rumeeyo iyo ambiyada iyo malaa'ikta iyo kutubta iyo maalinka dambeeya iyo qofku inuu rumeeyo qadarka khayrka iyo sharkiisa labadaba inuu rumeeyo. oo mani wixii dhaca ama dhib ha noqdaan iyo shar ama ha noqdaan wanaag iyo dheef inuu aamino in Ilaahay subhanahu wa taala qadaray, isagu sii jaangooyey, Ilaahay isagu uu abuuray waxa kan, kadibna uu ku qanco oo aamino. qadarkaasi wuxuu leeyahay sida culimadu ay tilmaamaan maraatib buu leeyahay, ama qaabka loo rumaynayo qadarku wuxuu leeyahay maraatib. waxaa kowka ah Ilaahay wax walba inuu sii ogaa, cilmu Allahi subxaanahu wa tacaala ashaamil lijamiici alashyaa. wax walba Ilahay subxana wa taala inuu sii ogaa. wallahu bikulli shayin caliim. Ilahay wax walba waa og yahay, oo shay kasta Ilahay subxana wa taala mid og weeye. Ilahay subxana wa taala wuxuu alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wاlard ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir. Ilahay wax walba inuu sii ogaa oo dhici doona, sidaas leeg Ilaahay subxana wa tacaala inuu qoray. oo Ilaahay wuxuu abuuray waxaa u horeeyey qalin. qalinkii baa Ilaahay amar siiyey, wuxuu uktub. qalinkii wuxuu qoray waxaa dhici doona ilaa qiyaami saaca baa qalinkaasi qoray. marka wax walba waa qoran yihiin, Ilaahay waa sii ogaa, waa sii qoray. lawxul maxfuudka bay ku kooban yihiin ama ku qoran yihiin dhammaantood. sidaas leeg Ilaahay doonistiisa in wax walba ku dhacaan waxaan Ilaahay doonin inaanay dhacayn. wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah. waxba dooni maysa Ilaahay wuxuu doonay mooyaane. isagoo insaanku
uu doonis leeyahay rabitaan leeyahay khiyaar leeyahay haddana marnaba ka bixi maayo iraadada alle doonista ka bixi maayo mashiicada alle markaa iyana waxay ka mid tahay maraatibta qadarka waxaa u dambeeya ilaahay wuxuu ogaa sii qoray damcay inuu haddana ahaysiiyo oo ilaahay kun fayakuun yidhaahdo dabena wixii ay markaasi dhacaan wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun baa alle subxana wa tacala uu leeyahay ilaahay idinkay waxa aad samaynaysaan ba idinka isaga abuuray marka qadarka caqiida ahaan sida loo aamino oo ilaahay inuu wax walba sii jaangooyey ilaahay wax walba uu isagu doonay damcay oo dhacaya waxaanu isagu damcin inaanay dhacaynin waxaanu abuurin inaanay abuurnayn waxaanu ilaahay iraadaynin oo doonin inaan la samayn karin taasi qof muslimka ay aamina waxay ka mid tahay qadarka ilaahay nagu adoonsaday inaynu rumayno sheekh kulli dii islaam baan qadarka waliba aaminsan hase sheekh laga yaabaa in dadka qaar diinta ku yarta aanay inta badan ay iyagu si kala arkaan habka ugu fudud ee aamin karaan qadarku wuxuu ka mid yahay asaasiyaadka diinta oo aaminidiisu iyadu waa shay waajib ah haddii qofku qadarka beeniyo iimaankiisa waa buraya arkaanta qofkii nebiga beeniya ama ambiyada beeniya ama rasusha ama kutubta ama malaa'igta iimaankiisa waa buraya qaabka markaa la doonaya inuu aamino awalan uu ilaahay isu dhiibo subxaanahu watacaala ilaahay aan rumaysannahay bay farac ka tahay inuu wuxuu jaangooyey inay dhacayaanna aynu aaminsannahay marka tii hadda aynu sheegaynay oo ah ilaahay wuxuu wax walba waa sii oga yani sifaadka alle waxaa ka mid a cilmiga iyo ogaalka ka mid a wax walba alle waa sii oga subxaanahu watacaala ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilma ilahay wax walba waxaad ku deeqday naxariis iyo ogaal wa axaata bimaa ladayhi waaxsaa kula shayin cadada ilaahay subxana watacaala wax alla waxa dadka agtooda yaala waa sii koobay waa sii ogaa marka inuu qof furimo ilahay wax walba sii ogaa labo ilahay wax walba inuu awoodo oo wixii uu sii ogaa inuu samayn karo saddex ilaahay mashii'a inuu leeyahay iraado iyo doonis oo waxaan doonistiisa ku dhicin inaanay caalamkan ka dhacayn isagaa abuurtay kownka isagaa dadka abuuray isagaa malaa'igta iyo jin iyo insi iyo kownka oo dhan isagaa abuuray waxaanu isagu damcin wixii uu abuuray kama dhici karaan siduu doonu alla u jahaynayaa wuxuu doonuu ilahi subxana watacaala ka samaynaya yafcalu maa yuriid yafcalu maa yashaa wuxuu doonu samaynayaa wuxuu doonu xukminayaa ilahi subxana watacaala cidna xukunkiisa ma diidi karto iraadadiisa mashii'adiisa cidna ma celin karto cidduu doonu noolaynaya cidduu doonu dilaya cidduu doonu arsaaqaya cidduu doonu ku yaraynayaa cidduu doonu cudud ku sallidaya cidduu doonu caafimaad siinayaa ilaahay markaa awooddiisa iyo ogaalkiisa iyo doonistiisa rabitaankiisa intaa haddaynu aaminno waxaynu aaminaynaa wuxuu damcaa inay dhacayaan waxaanu damcinaa inaanay dhaci karin sheekh inta haddaynu qadarka ka soo noqono oo hordhaco ahaa barnaamijkeena tan hantida in ilaahay qofku doono hanti siiyo u yaran karo qaarna aanu wax badan baa siin ama faqiir noqdaan arrintaasoo had iyo jeer dadkuna ay marmarka qaar dib ku geli karaan arrintaa iyada arsaaqda waxay ka mid tahay waxyaabaha qadarka ah ee ilaahay sii jaangooyey oo qof kasta wuxuu helayo iyo suu helayo iyo meeshuu ka helayay waxoo dhan waa sii qoran yihiin aayaad badan iyo axaadiis badan baa tilmaamaysa waxaa ka mid a aayaadka ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha ma jirto daabad iyo wax dhulka dushiisa socda ama ha noqdo dad ama xayawaan ama dugaag ama cayayaan wuxuu doonaba ha noqdo ilahay wuxuu ballan qaaday inuu arsaaqayo marka arsaaqda alla ballan qaaday inaana ilaahay cidaan ahayn arsaaq bixin karina ilahay waa xusay ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina tacbuduuna min duuni illahi laa yamlikuuna lakum risqa fاbtaguu cinda allahi risqa wacbuduuhu washkuruu lahu ilayhi turjacuun fi suurat alcankabuut ilahi wuxuu leeyahay isagoo gaalada la hadlaya iyo dadka mushrikiinta ah ilahay sokadii waxaad caabudaysaan wax alla waxay idin hanan karaan ama idin awoodayaan ama arsaaq idin siin karaan ma jirto ilaahay keligii xaggiisa ka raadiya arsaaqda isaga caabuda isaga u mahadnaqa ilaahay baa subxana watacaala markaas idin arsaaqaya isagana xaggiisa laydin celinaya aayaadkaas iyo kuwa lamidka ahi waxay tilmaamayaan ilaahay inuu isagu raasiq yahay waxaanu bixin inaanay dhici karin waxaanu cidda bani aadamka u garan inaanay helin karin aman hada aladii yarzuqukum
in amsaka risqahu bal lajuu fii cutuwin wa nufuur fii suurati tabaarik ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay waa kuma kaydin arsaaqaya alla sukadii aman hada ladii yarzuqukum in amsaka risqahu haddii ilaahay arsaaqda isagu idinka haysto oo idinka ceshado idinka xanibo cidda idin siinaysaa wa-ay waa cidnaba wey cidnaba bixin karto bal lajuu fii cutuwin wa nufuur ilah marka wuxuu leeyahy marka gaaladii waxay markaa galeen madax adayg iyo carar ay ka fiigayaan diintii sharcigii bay markaasi yay mareen marka arsaaqdu inay xagga alle ka timaado oo ilaahay cidaan aanay bixin karin iyana waxay ka mid tahay farc ka tahay qadarkeena aaminayna bay farc ka tahay marka waxaa la doonaya qofka muslimkaahi marka uu ama shaqo tegayo ama ganacsi abuurayo ama haddee baidmahayo dhaqdhaqaaq wax soo saar oo gooniya samaynayo in mar walba aamino cidda wax bixinaysa waa alle isagu wuxuu samaynaya waa asbaab wuxuu la imanayaa yani wasiilooyin iyo wadooyin buu maraya isle waxaad ku helaysaa lakin waxa dhici karta isagoo wax badan dadaal inuu waayo waxaa dhici karta qofaan wax badan bixin oo dadaalihi inuu arsaaq badan helo idan cidda ay waxaan ku xidhan yihiin waa allah subxaanahu watacaala isagaa bixin kara allah subxana watacaala isagaa cid walba arsaaqa kuwa aan awoodba lahayn oo haddee baidma cayayaanba ilaahay arsaaqaya oo aan tamar lahayn oo awood lahayn ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni umihi 40 yowman yacni qofkii waxaa lagu uuriyaa abuurkiisa uurka hooyadii 40 habeen isagoo markaa candhuufa ثuma yakunu mila dalika calaqa kadibna intaa in lag wuxuu noqdaa xinjir kadibna inta lag wuxuu noqdaa mudqayar ama cad yar oo hiliba kadib baa ilaha malagu soo dira balse waxaa la faraa 4 waxyaabood inuu qoro qofka camalkiisi wuxuu samaynayo inuu qoro risqiisii inuu qoro ajashiisii inuu qoro qofkanimo qof saciida oo liibaanaya mise qof guuldaraystay oo haddee baidmahayo khasaaraya oo gaalnimo iyo hoog iyo khasaare ku dhacay 120 habeen qofu marka uu jiray urka hooyadii ku jiray baa mar labaad dib loo qoraya arsaaqdiisi iyadoo hore hadda lawxul maxfuudka lagu qoray baa dib loo qoraya haddana markaa qofku si kastoo uu yeelo wixii ilaahay qoray xukuma bedeli karo saasoo jirta haddana waxaa loo baahan yahay qofku inuu dadaal iyo saci la yimaado ayaa loo baahan yahay inkastuu ka laho ama kabtiyo ama ku dheer fuulo dadka lin ku jira say ku tahay ama se koob shaaha kulligood addoommaha rabba u qeybshay kimistiiye nin waliba wixii loo katibay waa la kulansiine nina inaan soo kororsanin kaa la ogaado yani qofku si kastuu u ordo si kastuu u dadaalo intii ilaahay u qoray waayi maayo laakiin saasoo ay tahay inuu la yimaado dadaal oo aayaadku say tilmaamayaan inuu dadaal la yimaado insha allah waa ka hadli doonaa in qofku uu sacyi sameeyo oo dadaal sameeyo inuu raadiyo arsaaqdii oo doono oo wadooyinkii u ku heli lahaa maro ayaa looga baahan yahay sheekh aaminaanta marka laga hadlayo waxaa laga yaaba qofka dadaal badan ku bixiyay sidii ama hanti ama arrimo kale u heli lahaa markaasa laga yaaba de ilahay aanu qorin aanu helinba taasoo kale qofku hadhow tirada ilahay tol aniga muxuu siin waayey ama magaranaysa uu ka hadlo dembi tale uu ku mutaysan karaa qofku qadarka inuu hiifo oo ilaahay wuxuu u jaangooyey inuu ka caroodo waxay ka mid tahay iimaan yaraanta ama qofku waxay tilmaamaysaa iimaankiisa inuu dacfi ku jiro waayo hore ilaahay wuxuu u baray waxaan qorsheeyey mooye wax kala dhici maayaan ilahay marka subxana watacaala isagu cidduu doono u badiya isagaa cidduu doono ku yareeya xikmad buu uga jeedaa iyo aan wax ka tilmaami doono haddii ilaahay idmo xikam baynu ilahay uga jeedaa xikamkaa marka inuu ilahay u kalsoona la doonaya ilaahay inuu aamino ilaahay inuu naxariisanayo ilaahay abuuray ilaahay arsaaqay hadduu wax badan siin waayo ilaahay sidaa isaga u gartay oo laga yaaba dantiisu inay ku jirto baa dhici karta marka inuu qofku qadarka ku qanci waayaa waxay ka mid tahay calaamadaha tilmaamaya iimaankiisu inuu daciif yahay oo rukunkii koowaad soo sheegaynay hadda ee qadarka ahaa inaanu qofku dhab u aaminin bay tilmaamaysaa waxaa kaloo ay qofka geysiin kartaa hadduu ilaahay u cadhoodo qadarkiisa ilahay isagana inuu cadhoodo ilahay isagana inuu cadhoodo haddii ilahay qorshihiisa ku qanci waayo oo hiifo oo ka hadlo oo ku qanci waayo ilahay isagana in markaas u cadhoodo bay geysiin kartaa wallahu aclam marka hantida laga hadlayo had iyo jeer dadka islaamka qaar ba ay yidhaahda dadka gaalada waxa la siiyey hanti iyo magaranaysa iyo nolol fiican bay ku nool yihiin islaamka maxaa sidan oo kale ay u dhacday marmarka qaar bay soo geliyaan waa su-aal weyn aad baad umahadsan tahay ilahi subxana watacaala adduunkan ciduu jecel yahay iyo ciduu naciba buu siiya laakiin aakhire ilahay wuxuu siiyaa uu ciduu jecel yahay adduunka in loo badiyo qofka iyo in lagu yareeya labaduba waa imtixaan la imtixaamayo qofka ee maaha ka loo badiyana in la jecel yahay ka lagu yareyn in la necab yahay maaha suuradda walfajri ee aanu aada u akhrino ee dadka badankiisu xafidsan yihiin ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay
faama الإinsaanu إida ma اbtalaahu rabuhu faakramahu wanacamahu fayaquul rabi akraman وأma إida ma اbtalaahu faqadara calayhi risqahu fayaquul rabi ahaanani kala. ilahi wuxuu leeyay insaanka haddii alla imtixaamo oo markaas ilaahay karaameeyo oo nicmo badan siiyo wuxuu odhan wallahi ilaahay wuu ikraameeyey inuu ikraameeyo sharfay waxaan ku garanayaa wax badan buu siiyey. haddii ilaahay imtixaamo haduu imtixaamo oo cunto loo badiyo arsaaqda imtixaan baa lagu sheegay tadambana haddii la imtixaamo oo lagu yareeyo arsaaqdana wuxuu odhan ilaahay wuu idulleeyey waayo wuxuu igu yareeyey adduunkiibu ugu yareeyey ilahay wuxu uhi kalla sidaa maaha ma aha kan loo badiyeyna in la sharfay oo la karaameeyey kan lagu yareeyeyna in la duleeyey maaha lakin waxaa weye labada waa imtixaan labada la wuxu faama insan ida mabtalaahu hadduu imtixaamo tadambana ama ida mabtalaahu hadduu imtixaamo idan labada waa imtixaan. aayad kale alle wuxuu yihi wanabluukum bishari wاlkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun waxaan idinku imtixaamaynaa dhibaato iyo dheef labadaba xaggaygaana laydin soo celinaya. marka qofka in loo badiyo adduunkuna waa imtixaan. waxaa la eegayaa ilahay ma ugu mahadnaqay, waxaa la eegayaa meel xalaala ma ka kasbay, waxaa la eegayaa meel xalaala ma ku bixiyey, waxaa la eegayaa waajibaadkii ma ka gutay, sakadii ma ka bixiyey, biilashii waajibka ahay heerka iyo ciyaalka iyo ma ka bixiyey, islaamka ma ka caawiyey, sadaqaad ma ka bixiyey baa la eegaya. mise waa ku loo faray wuu dayacay, khamaar iyo khamri iyo qaad iyo tuugu kaga shaqaystay ku bixiyey, diin la-aan buu ku bixiyey waa la eegaya. marka waa imtixaamayey. ka lagu yareeyey waxaa la eegayaa ma sabray. haddii ilaahay adduunka ku yareeyey miyuu ciishooday, ma qadarkiibuu hiifay, ma ilaahay buu cadhooday, mise iimaan iyo qanaaco iyo qalbi qabow iyo raalli ahaansho oo alla raalli ka qadarkiisa ku qaabilay. kana waa imtixaamay, kana waa imtixaamayey. gaalka weliba in loo furay nicamka adduunka ama waxyaabo ka mid a dhalaadka adduunka in gaalada loo furay waxay tahay istidraaj, yani iyagaa loo seeta dheeraynaya aakhira marka la qabanaya. marka muslimka wixiisa waa loo kaydiyaa iyada oo fara badan oo wacan baa jannada lagu bedelaa. gaalkana wixiisa waa adduun aakhira waxba kuma leh. dhanna waa laga imtixaamayaayo yani waxaa laga yaabaa markuu ilaahay ka leexday falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum. marka ilahay ka leexday baa isagan loo seeta dheeriy waa la iska daayey si isuba ilaawoba si isu ilaawo adduunka isku farxo si u kadsoonyah dhab la qabanaya kadibna cadaab aakhiro iyo cadaab alqabri iyo masaa'ib buu markaasi yuu galabsanaya aakhir. nacam asxaabta nabiga alayhi salaam had iyo jeer marka iyaga dhibaato ay doonayeen ilaah weydiistaan ragcado sunna ayay tukan jireen ay ku dalbayaan waxay doonayaan. dadkeena maanta waxa laga yaabaa hadda doonayaan in badan intay duceeyaan inaanay waxay doonayaan banahay. taas maxaa usoo ragcadaha sunnaha ah istikhaarada waa loo tukadaa. qofku markuu xaajo iyo dan leeyahay ilaahay doon inuu ilaahay kala dooransiiyo, ilaahay dhanka khayr kale ilaahay uu ka waafajiyo waa la tukadaa. laakiin ragcado loo tukado wax lagu dalbo ma jiraan oo gaarahi. ducadii baa iska furan haddee ba idmahayo oo ama ha tukani ilahay waxaad u baahantay taas ba weydiisan kartaa. qofku hadduu wax la baxo iyo hadduu salaatuleyl kaco iyo hadduu sunayaal tukada markaana inuu ku ducaysto acmaasha saalixa ilahay ku barya waa iska furan tahay. lakiin ragcado gaara loo tukado ilahay waxa markaa danta aad leedahay ku siiyo ma jirto aan ahayn istikhaara. istikhaara jirto macnaheedu yahay shay baad ku walaacday ama aad ku taraduday ma sidan baad samaysaa mise sidan markaas laba ragcoo sunna baad tukanaysa dabana ilahay waxaad weydiisanaysaa inuu kuu dooro sida wacan. calى kulin dadkii saalixiinta ahaa saxaabadii nacam ducada marka imika qofku ducaysto waxa laga yaabaa asxaabtiina macna in ducada hore loo aqbali jiray. wasaan usoo socdo saxaabadii iyo taabiciintii dadkii salafka ahaa cibaadadoodu dadkan hadda jooga way ka cibaado wacnaayeen, way ka imaan badnaayeen. nabiga sal slam ammaanay wuxuu khayr اlquruuni qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum. qarnigaygan baa qurunta ugu fadli badan, waxaa ku xiga qarniga ku xiga, waxaa ku xiga qarniga ku xiga. saddexdaa qarni waxaa la isku yidhaha salaf saalix ama dadkii wacnaa hormaray ee saxaabadii nabi sal slam taabiciintii baa la isku yidhaahdaa. iimaankooda iyo camalkooda iyo way uga dhowaayen ilaahay. diintii soo degtay qaarkood xaadir ahaayeen, aayadkiisa soo degaya nabigeyba la saaxiibeen, raaceen, la joogeen. iimaankooda iyo acmaashooda dadka way ka wacnaayeen. taasaa sababaysay karaamooyin badan ilahay ka muujiyo, ilahay ducooyinkooda aqbalo. namaadijeed saaleel badanna way leedahay. marka waxaa laga yaabaa dee waxay ku xidhan tahay qofka ilahay ducadiisa aqbalo inuu xalaal cun yahay bay ku xidhan tahay, inuu ilaahay daacadiisa ku toosan yahay bay ku xidhan tahay, inuu xiliyada ilaahay ducada aqbalo uu isku aadiyo oo haddii beedmo xilliga isku beegay ku xidhan tahay.
asbaab bay leedahay ducada in la aqbalaa qof ilaahay waafajiyo waxaa laga yaba ilahay ducadiisa inuu aqbalo aan ku noqdo ilaahay yareynta ama badinta uu dadka u kala badiyey arsaaqda aayado badan baa alla ku sheegay oo ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahy qul ina rabbii yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir aayad kale qul ina rabbii yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdiru lah wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu suuratu saba labada aadba waxay tilmaamayaan waxaa tidhaha nabi maxamedow ilahi subxana wa tacala arsaaqda cidduu doona u badiyaa cidduu doonana wuu ku yareeyaa ilaahay wuxuu ku daray wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wixii aad bixisaana ilaahay baa idinka siinaya bedel waxaa ka mid ah aayadahaas ilahi subxana wa tacaala qowlkiisii allahu yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir ilaahay cidduu doono arsaaqda u badiyaa cidduu doona waa u yareeyaa marka aayaadka iyo kuwa lamidka waxay tilmaamayaan dadku ku kala duwan yahay arsaaqda helideeda arrinkaasi ma aha dulmi ilaahay dulmiyayo addoomihiisa waayo hantidu bixinaya alla isaga iska leh aduu hantidaada ciddaa doontaad siin kartaa ciddaa doontaad ka ceshan kartaa milkigaaga xaq khaaska ah weeye ilahay markaa cidna ma dulmiyin laakiin alle subxaanahu wa tacaala addoomihiisa isagaa caalimulgeyb u ah isagaa og kuwa in loo badiyaa ku haboon isagaa og kuwa in lagu yareeyaa ay ku haboon tahay waxaaso dhan isagaa og markaa xikmadiisa eebe subxaana wa tacaala iyo qadarkiisa uu wax walba sii ogaa ama sii jaangooyey baa tilmaamaya ama laga fahmaya ilahi subxana wa tacaala inuu haddii bel cidna u yaro cidna u badiyo xikamka culimmadu ay tilmaamaan waxaa ka mid ah kow imtixaanka haddaynu sheegayni ilaahay qodana waa u badinaya qodana ku waa imtixaan kuwa waxaa la eegayaa maku mahadnaqay kuwana waxaa la eegaya ma sabreen waxaa ka mid ah haddii dadka hantida loo wada badiyo way qooqi lahaayeen ilahi subxana wataala sida uu tilmaamayo walow basada allahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi walaakin yunazilu biqadrin maa yashaa haddii bini aadamka ilaahay uu u badiyo hantida dhulkay ku qooqi lahaayeen xadgudub bay la iman lahaayeen laakiin ilaahay jaangooyin kusoo dejiyaa waxa uu bixinayo halkan waxaynu ka arkaynaa in haddii dadka dhammaan la siiyo maal fara badan dadku way kibri lahaayeen lakiin mar baa la yar qabanaya suu ilaahay ugu noqdo si uu isu xasuusto si uu ilaahay u baryo ilaahay inuu baryo lafteedu waa cibaado weyn oo haddii inta layar fakri lagu imtixaamo uu noqdo alle u noqdo waxaa loo soo celiyey xaggii alle waxaa lagu kalifay inuu ilaahay xasuusto ilaahay baryo markaa taasna waa ka mid waxaa ka mid ah oo culimadu ay tilmaamaan xadiis daciifina ku yimid ilahi subxana wa tacaala dadka inugu kala qabiyo arsaaqda inuu og yahay kuwa haddii loo badiyana ilaahay adeeci lahaa haddii lagu yareeyana ilahay caasi lahaa taa cagsigeeda ama lidkeeda kuwa ilaahay haddii lagu yareeyana caasi lahaa haddii loo badiyana ilaahay adeeci lahaa marka ilaahay kuwo kalena qaab kale ama xikmad kale oo ah in ilaahay isaga uba turayaba oo ugu turaya haddii ilaahay ku yareeyo inuu diinta ka bixi lahaa kuwo kalena haddii loo badiyo inay diinta ka bixi lahaayeen marka dhan kale culimadu waxay leeyihiin waxaa weeye xikma rabbaaniya oo ah turaale alla u turayo addoomihiisa oo qodoba wuxuu ku haboon alla subxaana wa tacaala uu u jaangoynayo ama haddee ba idmahayo uu u qorshaynayo qodobada iyo kuwa lamidka ah baa ka mid ah kuwa culimmadu ay ka istimbaadeen ama ay ka fahmeen in ilaahay u kala bediyay dadka arsaaqda oo qolo walba sidii ku haboonayd oo markaas alla subxaana wa tacaala u qorsheeyey waxaa ka mid a inay arrinkaas ka mid yahay oo qodob afraada calaamaadka waaweyn ilahay lagu garto arsaaqda ilahay cidduu doono inuu badiyo cidduu doonana inuu u yareeyo waxay ka mid tahay aayaadka alle yani waxaan qorshe ku socdaan qorshe rabbaaniya oo xagga alle ka yimid oo cidduu doona ilaahay wax badan siin cidduu doona siinayo waxay ka mid tahay calaamaadka lagu garto ilahi subxana wa tacaala jiritaankiisa awoodiisa qudradiisa deeqdiisa iyo wixii la mid ah doctor axmed jaamac had iyo jeer dee hay-ado iyo magaranaysaa ama baananka dadka waxay siiyaan lacag in dadku eebe ducadiis ay ka tagaan oo hay-adaha iyo waxa magaranaysaa marmarka qaar tartan u galaan taa qudhadeedu miyaanay saameyn ku yeelan karin qofku inuu asbaabta qaato iyo wadooyinka oo lacag ku helaya xalaashaahi ma aha xaran laakiin inuu qofku ilaahay ilaawo oo marka abaaruhu dhacaan ama masiibooyinku dhacaan fatahyada badaha iyo dhacaan duufaana dhacaan dhulgari dhaco wixii lamida ee masooyinkaas in qofku ilaahay ilaawo oo hay-adaha caalamigana soo gaarhaan iyo wadada deeqda bixiya nala soo gaarhaan deeq iyo waxay oo qofku ilahay xaggiisa ilaawaba oo markaba waxa uu ku tiraabayaa ee koowaad u noqdo inuu u qayshado hay-adaha deeqda bixiya wixii lamid ihi
waxay tilmaamaysaa in qofkaas iimaankiisu dhaawacan yahay waxay ahayd waxa ugu horeeya oo xasuusta cidda ugu horeeya xasuustaa marka dhibaata gaadho inay alla noqoto subxaana wa tacaala waayo ilaahay wax walba awooda bini aadamkani wuxuu hayaa waa kooban yihiin awooddiisaa kooban huridiisaa kooban hadduu xitaa hayo wax badan bixintiisaa kooban ilahi subxana wa tacaala hadduu caalamka o dham intay meel istaagaan jin iyo insiba qof walba wuxuu doono weydiisto oo qof walba wuxuu doonay uu siiyo ilaahay waxba kama nusqaamisay milkigiisa marka ilahay waxba kuma aha inuu jeebka kuu buuxiyo anna ii buuxiyo cid kastana u buuxiyo milkiisa waxba ka nuqsaami mayso ilahi subxana wa tacaala waa raxiim waa naxariiste addoomuhu markay jilicsan yihiin u naxariistaa ilahi subxana wa tacala wuxuu leey aman yujiibu lmudara idaa dacaah yaa ajiiba qofku marka uu dhiban yahay hadduu u baaqo allah baa ajiiba subxana wa tacaala qofku markuu dhiban yahy gaal iyo islaam waxay isku waafaqsan yihiin culimmadu sida aayaadku tilmaamaya ilahay inuu ka aqbalo وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى آخر الآية إلى سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay marka dhibaatadu badda idinku kacdo dhibaata idinku gaadho cid kale boo ilowna allama waa gaaladii ilahay markaasuu ka aqbala ducada markay banaanka u baxaan bay ilaawaan oo markaasay asnaamtoodii wuxoodii caabudaan marka gaal iyo islaam qofku markuu dhiban yahay hadduu ilaahay baryo ilahay xasuusto ilahay waa ka aqbala marka waxay ahayd haddii dhibaata dhacdo abaari dhacdo musiibooyin dhacaan duufaano dhacaan iyo wixii la mid ah cuduro faafaa dhacaan cidda ugu horeysa la xasuustaa inay noqoto allah subxana wa tacala isaga la baryo isagaa gacmo fadan kugu soo dhoweynaya isagaa ilahi subxana gacantiisa waa fidsan tahay habeen iyo maalin qofkii ka toobad dalba ilahi waa ka toobad aqbalaa qofkii wax weydiista waa siiyaa qofkii dhiban ilahi waa u gargaaraa ilahi subxana wa tacaala addoomihiisa inuu wax taro oo u deeqo oo haddee ba idmahayo waxay ka tabanayaan ba ilahi subxana wataala ka tiiriyo alla subxana wa tacaala jecel yahay waa ku farxaya addoomihiisa inay u noqdaan baryaan gargaarsan laakiin dadkii waxaad moodaa inay ilaahayna in badan oo ka mid ilaahay ilaaweyn asbaab dunyawiya iyo bini aadamna ay markaasi wax moodeen oo hay-adaha iyo deeqbixiyaasha waxaa un ay xasuusan in lagaadu dhacdo ay abadu dhacaan ama dhibaatooyinku dhacaan taasna waxay tilmaamaysaa iimaanku inuu naqsi ku jiro waa ilaa haddii iimaanku qawi yahay ilahay ba subxana wa tacaala ugu horeey la xasuusan lahaa isaga wax la baryi lahaa isaga la weydiisan lahaa wallahu aclam irsaaqada marka aynu ka hadlana hantida in qofku hanti helo dee siyaabo badan oo lagu hela jira marka haddaad yaro tilmaamto dee dhinacyo ma garanaysaa iminkoo kale waxaa ka mid a dee dadka hay-adaha yidhahda waxbaan idin siinanaa markaa lacag soo celiya iyagoo dee hab ma garanaysa ribi oo kale soo gelaya waa si fiican shareecada islaamku waa shareeco kaamil ah ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka waxba kaga maanu tegin wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likuli shay waxaanu kugu soo dejinay kitaabkaisa wax walba caddaynaya alla subxana wa tacala uu leeyahy waxyaabaha sharcadu ka hadashay waxaa ka mid ah dadku inuu xoogsado ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo markaasi ka hadlaya arsaaqda in la kasbo oo faإida qudiyat الصalaaةu faاntashiruu fi اlarضi wاbtaguu min fadli الlah salada jumca marka la dhameeyo dhulka ku faafo oo arsaqda ilaahay dalba ba alla subxana wa tacala uu leeyahay huwa اladii jacala lakum اlarda dhaluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wailayhi الnushuur alla subxana wa tacala waa allaha dhulka idinka dhigay hayin marka famshuu fii manaakibiha dhulka wadooyinkiisa socda ama buurihiisa socda sida lagu fasiray ilaahay arsaaqdiisana dalba oo cuna ilahay baan subxana wa tacaala idin soo saaraya markaa dhimataan aayadaha iyo kuwa dadki waxay tilmaamayaan ama ku dhiirid gelinayaan dadka in la xoogsado oo la shaqaysto oo ilaahay wuu ballaadhiyey oo waa waasiciyey wadooyinka arsaaqda qofku dhanka u dhaqaaqaba ilahay arsaaq buu ka siinaya haddii uu markaasi kallaho dadaalo ilahayna isku tiri ilahay markaa tala saarto marka shareecadu waxay dhiirigelisay xoogsiga staalidkeeda shareecadu waxay aad iyo aad u cayday su-aasha iyo baryada oo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahy qofka dadka wax weydiista qiyaama wuxuu imanayaa isagoo wejigiisu hal hiliba usan lahayn yacni lafa qalalan isago ah foolxumada ka muuqata marka qiyaamaha imanaya su-aasha uma banaana inuu qofku dadka iska barya saddex mooyaane nebigu sal ly slam uu leeyahay qof dad kala furtay oo xoola ka dhex qaaday oo isagu dimadiisa ku qaaday anaa kala furanaya bixinaya iska daaya qof xoolihiisii oo dhami halaagsameen oo bad la degtay ama gubteen iyo qof saddex qof oo tolkiya ama dadka yaqaana isugu markhaati furay ninkaas in baahii ku dhacday saddexdaa qofun bay u banaanta dadka inay wax weydiistaan
laakiin qof kale uma banaan dadka inuu su-aal iyo baryo inuu weydiisto. marka ama hay-ada ha noqoto, ama ha noqoto masaajid laga kaco, ama ha noqoto suuq la istaago, ama ha noqoto kuwa waxbaryo ee waaweyn jeebweynka, ama ha noqoto kuwa masaakiinta ee yaryar, ama hay-ada ha noqoto, ama dowlada ha noqoto, baryada la baryaya bani aadamku ma banaana saddexdaas sifo ee xadiisku u tilmaamay mooyaane. marka in dadku shaqaysto ee sharcigu dhiirigelinaya, taasaa sharafta ku jirta, taasaa alla subxana wa tacala qofka ugu kaalmaynaya. oo xitaa qofku markuu subxii ka kallaho gurigiisa hadduu u kallaho arsaaq inuu dalbo xalaal ah waa u sadaqa wey. qofku inuu kallaho hadda isagaa naftiisa wax u helaya ama heerkiisa biil u helaya, naftiisuu doonaya inuu ka dhowro su-aasha iyo dayaca, ama ubadkiisuu ka dhowraya dayaca iyo su-aasha iyo baryada, arrinka ilahay ajri buu ku siinaya, ajri buu ku siinaya. hadduu ciyaalkiisa biil u keeno, hadduu naftiisa uu dabaro, ilahay ajri buu ku siinaya. marka isagoo xoole helaya oo ajr helaya, oo haddee baid ma arsaaqdii alla u qoray midaan ahayn aan soo helaynin, inuu waddo xun oo baryo ah uu ku doonto oo waddadii xalaashayd uu ka leexdo, ee arrintii waxaa weeye waa diin yaraan, waa caqli yaraan, waa dhibaato weyn oo mudan in laga waantoobo. nebigu sal alla alay wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi ina ruuxa alqudusi alqaa fii ruuci ana nafsa lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi اطalb. nebig sal slm wuxuu leeyahay malkuljibriil baa wuxuu ii waxyooday nafina inaanay dhimanin ilaa arsaaqdeeda ay laasato, ilaa ay wixii ilahay u qoray laasato, nafina dhiman mayso. marka ilahay ka cabsado oo xoola raadinta iska hagaajiya, wada wacan kolle wixii waad helaysaan ilahay idin qoraye, wada wacan ku raadiya. marka waddada wacan in la qaado oo baryada iyo laalaabka iyo khiyaamada iyo xatooyada iyo tuuganimada iyo layska daayo, oo qofka muslimka waddo xalaala uu maro, mar hadda wuxuu soo helaya ay yihiin arsaaqi ilaahay qoray oo keli wax kale aanu soo korodsanaynin, inuu waddo xalaala maro baa yaa wacan sharciga waafaqsan. wallahu aclam. doctor axmed jaamac ismaaciil, waxaan gabagabadii aan taagnay barnaamijkeena, maantana waxaan kusoo qaadanay hantida gaar ahaan in ilaahay isagu uu qofku doonan u badiyo, qofku doonan u yareeyo. in dadku taa aaminaan, dardaarankaa ugu dambeeya ad siinaysa muxuu noqonaya? bismi llah raxmaan raxiim. dardaaranka u dambeeya aan bixinaya waxaa weeye dadku iimaankooda inuu dib u muraajiceeyo, iimaanka in dib loo muraajiceeyo, qof waliba iimaankiisa dib u qiyaaso, arkaantii iimaanka lagu noqdo aliimaan biاllaah wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyowmi alaakhir wabilqadari khayrihi wa sharihi. qodobadaa iimaanka oo qadarka uu ka mid yahay, bal heerka qalbigeenna ay ka taagan yihiin qodobadaas, miisaanka ay ku leeyihiin arkaanta iimaanku ay ku leedahay qalbigeenna inuu fuulidno marka koowaad. qodobka labaad, qeybtan arsaaqda ah oo laga yaabo marka soomaali aan fiiriyo aan isdhaahdo walaha qodobka iimaanka ay rumaysan yihiin in arsaaqda ilaahay bixiyo oo aanay soo kordhayn nuqsaamayna, oo in jaan go-aan ay tahay iimaanka ay aaminsan yihin, waxaan is leeyahay waxbaa ka khaldan. markaad aragto xatooyada, ninkii xafiis loo dhibay inuu dhacayo, markaad aragto kii ganacsi ku jira inuu isdabamarin iyo laalaab iyo ku waxaynayo, markaad aragto kuwa hay-adaha iyo waxaa la shaqeeya inay wax badan bajad badan qoranayaan oo beena oo doonaya inay ku cunaan wax yar farguudkoodna ay dadka gaadhsiiyaan. markaad aragto kuwa ka shaqaalaha caadiga ee farsamo yaqaanada makaanigiyada, kuwa kan farsamada gacanta ka shaqeeya, nin waliba inuu doonayo lacag badan inuu helo, wixii gaariga uu geliyo wax ka badan inuu soo qoro, ama qalabkii kala khiyaameeyo. markaad dhinacyada kala duwan eegto waxaad is odhanaysaa dadka iimaanka ay rumaysan yihiin ama ku qanacsan yihiin arsaaqdu inay tahay shay qoran oo aan kordhan nuqsaamayn oo alla sii jaangoye, ilaahayna ballan qaaday. iimaanka ay taa rumaysan yihiin inay yar tahay bay igu muuqataa. marka waxay u baahan tahay inaynu iimaanka raajicino, iimaanka xoojino, cilaaqada qofku uu la leeyahay ilahi subxana wa tacaala iyo xidhiirka alla leeyahay uu xoojiyo, ilaahay xaggiisa u noqdo, ogaado gacanta alle inay buuxdo, wuxuu doono alle inuu ku siin karo, nina inuusan fakhriga la dhalan, nina fakhriga tira sare uma goosan. ilaahay baa ciduu doonana u badiya, ciduu doonana u yareeya. ilaahayna rajo weyn iyo amal weyn iyo didiilo badan ilahay xaggiisa laga qabo, ilahay gacanta kuu buuxin karo, xerada kuu buuxin karo, ilahay xaggiisa in loo caaro, ilahay la cuskado. markaasaa markaa ay toosaysaa qofka arsaaqdiisii. markaasa haddee ba idmahayo ilahay wuxuu haysto u barakaynayaa, markaasaa ilahay qalbigiisa qanaaca iyo iimaan gelinaya. inahaasaan odhan lahaa. wajazaakum allahu khayran.
daawadayaal intaasi waxaan kusoo koobanaa barnaamijkeenii oo marti inoogu ahaa doctor axmed jaamac ismaaciil aqoon dheerna u leh arrimaha bankiga gaar ahaan kuwa islaamka isla markaasina toddobaadkan waxaan barnaamijkeena ku ooganay qoraa hantida ama ilaahay inuu markuu qof walba abuuray uu qoray wixii uu soo raaciyey qoraalkii uu adduunyada ku heli lahaa dadkuna ay aaminaan qadarka ilaahay tan iyo inta barnaamijkan ka xigaan ku kulmano anigii sheekh doctor axmed jaamac ismaaciil waxaan idinkaga teganaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu